shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa ku saabsan horumarinta dhaqaalaha waddanka Masar waxaana ka qayb galaya in ka badan 80 dawladood madaxdooda ururo caalami ah iyo ganacsato ka socota adduunka waxaana mas'uuliyiinta ka qayb gashay kamida amiiro boqorro madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal waxaana kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer oo ka hadlaysa maalgelinta waddanka Masar iyo guud ahaan maalgashi lagu sameeyo qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ka tirsan tahay muhiimadda ay leedahay madaxweynaha waddanka Masar Cabdulfataax Al-Siisi ayaa furay shirkaasi isagoo sheegay in waddanka Masar uu diyaar u yahay maalgashi ay ku sameeyaan wadamada kale ee caalamka waxa sidoo kale goobta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in waddanka Masar maalgashi lagu sameeyo iyo horumarinta dhaqaalihiisu ay faa'iido weyn u tahay Afrika waxaana uu tilmaamay inuu yahay buundada isku xoreysay ganacsiga Afrika iyo qaaradda Aasiya. It's a great honor for me to be here today to stand beside Egypt on behalf of Somali people for the development of Egypt. It's a great pleasure for me and for my delegation to be here at this important summit of Egypt is the future. Let me begin by thanking His Excellency President Abdulfatah Al-Sisi, the President of the Republic of Egypt and his government, and to the people of Egypt for organizing this important summit for the future generations of the Egyptian people. I would also like to thank His Excellency Sisi again for his inspiring opening speech for this great occasion. Excellencies, ladies and gentlemen, we are here today to talk about investment in Egypt. As we live in the era of globalization and technological change, it's imperative that our countries should develop the policies necessary to support the promotion of foreign and domestic investment for a sustainable growth. I'm sure we will hear views of the government of Egypt. mas'uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa waxaa sidoo kale kamid ahaa amiirada wadamada Imaaraadka Carabta, Kuwait, dhaxal sugaha dalka Sacuudiga, madaxweynayaasha dalalka Suudaan, Falastiin iyo waliba mas'uuliyiin kale. wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horkacayay ma ahayn oo kaliya ah xubnaha dawladda federaalka ah saate waxa uu heliyay xubno ka socda rugta ganacsiga ee Soomaaliya. agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore ayaan weydiiyay faa'iidada shirkan ay ganacsatada Soomaaliyeed ka faa'iidi karaan maadaama ay imaanayaan ganacsato ka socota caalamka iyo maalqabeeno. waana shirkan waxa loo qabtay sida dhaqaalaha waddanka Masar runtii loogu heelin lahaa oo runtii muddo dheer dhaqaalahooda u taagnaa waxaana oo tilmaamay geographically meesha ay Masar ku taalo faa'iidada ay leedahay tartanka haday ka qayb galaan caalamiga ah inay isku xiri karaan Asia iyo qaaradda Afrika iyo wadamada Carabta inay isku xiri karaan sadarteed waxay ahayd runtii shir dadkii nambarkii ugu fara badnaa adduunyada ka soo qayb gali karaan ay isugu yimaadeen madaxweynuhuna waxa uu muujiyay Soomaaliya inay la garab istaagayso wax la waxay awooddo dawladda Masarna ay Soomaaliya ay u baahan tahay labada wadan ay taariikhiyan aysan kala maarmin waddankanna oo leeyahay population aad u fara badan oo dhalinyaro ah oo hadii la maalgeliyo runtii horumar ka gaari lahayn Soomaaliya private sector keedana runtii waxa ay u tahay sharaf inay madaxweynaha la socdeen kana soo qayb galeen shirkan wax badan baan ka faa'iidi doonaa hadda kadib sida loogu online karo ganacsiga Soomaaliya marka la rabo mustaqbalka shirar noocan oo kale ah in ummadda Soomaaliyeed loo qabto shirkan oo maanta furitaan ahaa isla markaana ay dhimayeen qaybihii kale ee shirka ayaa waxa rugta ganacsiga Soomaaliya iyo wafdiga madaxweynuhu horkacayaba ay arki doonaan mas'uuliyiinta ka qayb galaysa ee ka socota dalalka caalamka iyo maalqabeennada adduunka iyagoo kala hadli doona sidii maalgashi balaaran loogu sameyn lahaa Soomaaliya si dalkeenna dhaqaalihiisa uu sare ugu kaco. Bashiir Khaliif Gaani, SNTV, xarunta shirka horumarinta dhaqaalaha waddanka Masar, Sharm El Sheikh.